dadkii magaaladu way barakaceen aad iyo aad bay u barakaceen xoolihii meel ay daaqal ma jirto waa tallaabo kale oo muujinaysa deeqsinimada iyo sida bulsho ahaan isugu tiirsan yihiin shacabka degmada Quljeed waxaana markan Sharmaake Xasan Xaddi oo kamid ah bulshada degmada oo dareensan baahida dadka loolayda iyo sida ay u saameysay abaarta daran ee ka jirta deegaanada ka tirsan gobolka Awdal uu maanta u qaybiyay caws 120 qoys oo loolaya oo waqti xaadirkan baahi weyn u qabay halkan dadkii baa jooga saakaana guddoonsiinaya waxaanu bixi dar lahay iyo waalidiinteedii cawskan oo marka hore ahaa mid muwaadinkan u kaydinayay si uga ganacsado balse xaaladda abaareed ee ka jirta degmada iyo deegaanada ku xeeran uu ka adkaysan kari waayay isla markaasina ay sabab u noqotay sida uu sheegay in doorkiisa uu kaga qayb qaato cawskan gurmadka loo fidinayo dad iyo dunyaba maanta waxaan goostay cawskaygii aan muddo kaydinayay 2 sano iyo badh inaan maanta ugu deeqo dadkayga waalaha Quljeed iyo hareeraheeda taasoo keentay abaar weyn oo ballaaran oo ka dhacday gubani oogo waxaan qoostay cawskaygii markaan dadka ugu deeqo 100 qoys iyo qadaadiic halkan dadkii baa jooga saakaana guddoonsiinaya waxaanu bixi dar lahay iyo waalidiinteedii inta kadib waxaa madashaasi hadalka qaatay isla markaasina deeqdan cawska uga mahadnaqay Sharmaake Xasan Xaddi oo kamid ah shacabka degmada Quljeed maamulka degmada iyo sidoo kale qaar kamid ah qoysaska loolayda ah ee loo qaybiyay cawskani halkan waxaan uga mahad celinayaa Sharmaake Xasan Xaddi beertiisa cawsiga ka gooyay oo kaydiyay muddo 2 sano ilaa 3 sano ah oo halkan taalay markuu eegay dadkan deegaankiisa iyo ku xeersanaa iyo walaalihiiba inuu ugu deeqay cawsiga kaydinay oo iibka kolka hore u diyaariyay inuu ugu deeqay dadkaas walaalihii dhibaataysan ee lo'dii hay roqatay ka kici weeday aqlada waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah kugu daro beertana Allah ku barakeeyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid kasta oo dadka ama xoolo wax ka tarta ama calaf dad wax ka tarta ama calaf xoolaad wax ka tartana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maxay Sharmaake Xasan Xaddi oo ugu deeqay caws u yaala beertiisa oo kayd u ahaa beeraha yaraay tirada yaraay kaydka lahaay ama maxay cawska u baxay waa kuwa maanta ugu deeqay walaalahood war maanta Quljeed intaasoo beeroodo heshaay ala beer hangar lagu kaydiyo cawska iyo caleenta uma baahanayso cid kale oo cawsiisa cid kale oo maxay haydanay siisa caleen sababtoo bari kamaan iyada siin kartaa hadii abaar dhacaan dadkaygan ku soo guuray dadkida kale maxay haydan abaaru ku dhacaan barteeda ugu geyn kartaa oo ugu deeqi kartaa ragga walaalahaya ee dadka muxsiniinta ay abaaraysan wuxuudi dar Ilaahay ugu deeqay dar Ilaahay ugu deeqeen waxa faan uga ma jeedaan cid kale waxa igu siiso uga ma jeedaan waxay u bixiyeen dar Ilaahay horta waalidiintii beeraha qabtay laga gooyo cawska Ilaahay jannada ka waraabi miisaanka xasanaadka Allah ugu daro inamada bixiye waxa weeyi inama qaaliya markay dadkii baahidoodii ayageen waxay ugu deeqeen tigaadaad arkaysaan korkay arkeen baahidii dhulka taallay oo maanta aad iyo aad u liidata degmada Quljeed waxay ku bixi jirtay buur la yiraahdo Dharable buurtii waxa iskala baxay geerisa wixii ka soo sareeyay oo dhan yaa isku yimid 6 bilood bay daaqi jireen xoolaha degmadu iyo qabaalatada Itoobiya intii ka dambeysay markii halka la isku yimiday dadkii magaaladu way barakaceen aad iyo aad bay u barakaceen xoolihii meel ay daaqal ma jirto gudoomiyaha degmada iyo Sharmaake Xasan Xaddi oo labada riiga magaalada dhinacyada ka yaala mas'uuliyiinta ka waxay ugu deeqeen dadkii way cuntobi weeyda waxay haysteen maantana wuxuu u deeqay hantidiisii iyo walba hanti lagu gooyo hantidiina ugu daray dadweynihii degmada iyo soo hordhigo yiri waar wakaas oo ugu deeqay Sharmaake Xasan Xaddi isaguna markuu hareer eegay baahidii meesha taallay deesna way cuntobi weeyda waa ka dadka soo hordhigay yiri maanta yiri isaguna war wixii waxba yeeyoolin dadka dhinacan u raacay ku daray mahad waxaan u celinaynaa Sharmaake Xasan Xaddi khayr Allah siiyo oo halka uga soo kalahnay saaka oo u dhiganayna caawa haduu Ilaahay yiraahdo